waxaan rabaa inaan kusoo qaato ma jirtaa visa free ah amse si bilaash ah oo laga helo dalka Canada. Su'aashaas ayaan rabaa barnaamijka inaan ku faahfaahiyo insha Allah haduu Ilaahay idmo. Waxaan ka codsanayaa hadaad channelka ku cusub tahay inaad subscribe, like, share wax walba ku qabatid. insha Allah channelkan waa channelkaagi, waxaana kala socon doontaa wax walba oo ku saabsan wadankan Canada oo akhbaarada ah muhiim ah ku saabsan bulshada Soomaaliyeed iyo wixii kala too macnaha fursada ah. saan ku furtay barnaamijkeygii dad badan ayaa Facebook message igu soo diray, Instagram-ka wax walba ay ahaataba ilaa Facebook bahalka YouTube-ka xalay aan ku qoray walkiisa maxaad jeceshiin inaan ka hadlo maalinta berita ee Sabtida ah maadaama macnaha Sabtidii aan shaqo jirin inta badan. marka maanta waa Sabti, waxaan rabaa inaan qaar su'aalihii idinka aad ii soo weydiiseen ee walka aad ku qorteen in aan waxyaalo aan ka soo qaato. marka intaan saas dhihin waxaan rabaa inta meesha barnaamijkaas aan u gudgalin waxaan rabaa inaan dhaho waxa Facebook iyo meelo kale to message igu soo dirayay dad badan oo Soomaaliyeed oo walaalo ah isku jira rag iyo gabdho qaar number i weydiinayo. aniga waxaan dhihi lahaa marka intaas waxaan rabaa inaan ka dhaho si public ah ama si ay dadkooda og yihiin official ah. horta dad ba qaar message-kooda hatta waxa ku jiray in aniga macnaha ay u maleeyaan inaan leeman gadaayo ama si waxyaalo noocaas ah macnaha suuragelin karo. marka waxaan rabaa aniga waxaan idin sheegay horta shaqadeeda waxay tahay kaliya wixii oo fursad ah ama jaanis ah ee wadankan ka jiro in si official ah ama si macnaha through social media aan dadka kala socodsiiyo oo u sheego jaaniskaas ayaa jiro. hadaad adiga leedahay macnaha skillskaas ama si waxa la dhaho xirfadaas shaqadan wad apply gareyn kartaa, saas ayaad u apply gareyn kartaa. marka ma aha shaqadeyda inaan qof telefoonka la hadlo ama si qof macnaha xiriir kale aan la sameeyo oo ku saabsan qaab kale oo wadankan lagu iman karo ama si waxyaalo kale ay dhaxmaraan. mid kale waayo waxaad u baahan tahay inaad adiga macnaha lawyer tahay ama si aad qaanid waxyaalo sharciyan ah oo noocaas ah macnaha qofka aad ka caawin kartid. marka lawyer ma yahay aniga kaliya waxa waaye information general ah oo website-ka dawladda aan ka soo xigto iyo dad kale oo macnaha sideeda oo kale oo YouTuber ah laakiin luqado kale ku hadla oo bulshadooda gaarsiiya maxaa la fursadaha wadankan ka jira baan la mid ahay. waxaan rabaa macnaha inaan idin sheego wixii fursad ah ee wadankan ka jira inaad macnaha la socotiin oo aad ka faa'iideysatiin. marka taas waa taydii aniga ii gaarka ahayd. marka waxaan idinka codsanayaa in idinka shakhsiyan numberkayga telefoonka weydiinta xoogaa iga deysaan iyo waxyaalo noocaas ah. marka hadaad u aragtid informationka markaas ama videogaas markaas aad daawatay oo aniga aan soo duubay in ay ku jiraan waxyaalo ku anfacayo, waxaan ka codsanayaa wixii videogaas aan dhahay in adiga aad raacdid asaas macnaha barnaamijkaaga macnaha maxaa la ku dhameysatid. waayo dad badan ayaa jira Soomaaliyeed oo adiga laga yaabo in qaraabatihiin ay kula dhasheen waalid ku yihiin oo wadankan jooga oo ka caawin kara wax walba macnaha barnaamijkaas ku jira. marka waxaan jeclahay in dadkaas la xiriirtid ee ka caawiyaan wixii adiga markaas aad tahay oo adiga aad rabtid. marka aan soo gudbo su'aalaha xalay walka lagu soo qoray waxaa kamid ahayd gabar baa waxay soo qortay anigoo ku jira 5 group haddii macnaha caloosheeda ay wax galaan ka waran effect ama dhibaato ma u yeelanaysaa. aniga ogaalkayga macnaha hadaad ku jirtid 5 group horta 5 group macnihiisu wuxuu yahay ma ahan nin inaag isqaba oo isku doodaya macnaha naagtan anaa qaba ama ninkan anaa qaba saas ayaan wadanka u keenayaa ma ahan. laba qof oo isla dhalatayna ma ahan laba qof oo macnaha adig waxa waaye macnaha just laba qof oo saaxiibo ah ama dad badan oo saaxiibo wadankan ku leh raba in saaxiibkooda ay wadankan keenaan. marka way dhici kartaa qofkaas meeshuu joogo inuu xaas uu ku leeyahay ama gabadh ay ku leedahay nin
ay macnaha sida daraadeedii macnaha maxaa la ilmo uur mise ay ku qaadeen kastoo ninka macnaha markii la soo qaaday mise wax walba asaga uurusan qaadaynin laakiin hadda sheekadan macnaha gabar ayay soo weydiisay marka haddii adiga programkaagii koowaad marka barnaamijka aad bilaabanaysayba uu kugu jiray famil uu kuu qornaay in adiga xaas aad leedahay amise maxaa la naag aad leedahay labaduba wax dhibaato ah ma keenayso laakiin waxaa waaye waxaa keenayo haddii adiga aadan sheeganin oo kugu jirin maxaa la famil oo single aad ahayd kabacdi dacwadii markay kugu bilaabatay oo barnaamijka cabaar uu kuu socday in haddana macnaha uur aad qaado kabacdi waxaa laga yaabaa marka in macnaha processkii iyo barnaamijkii kala too socday in ay macnaha kulley shakhsiyan cunugii banaanka muusan imaan laakiin waxaa waaye in macnaha medical kale aa martid uurkaaga iyo waxyaalo noocaasa macnaha laakiin ma u malaynayo in totaliba ay macnaha gebi ahaanba kaa joojinayaan wixii markaas kuu socday wax dhibaataana ma lahan waad macnaha maxaa lalahay waad guursan kartaa haddaadan macnaha nin qabin haddii adiga naag aad qabtayn macnaha waa iska marka wax dhibaato ay kuu keenaysa male ma fahantay laakiin marka adiga dhasho oo meesha aad macnaha barnaamijka kuu socdo inaad tad uur qaaday oo haddana meesha aad ku dhasho haddana aad rabtid cunugii inaad soo qaatay barnaamijkana adiga kaliya kugu koobnaay taasna waa weji kale gooni ah laga yaabay macnaha inuu weji yeesho dad su-aal kale taas haddaan meesha u gudgudbo su-aasha kale waxay ahayd qof baa wuxuu yiri maxaa u dhexeeya farqi ah barnaamijka sponsorshipka iyo wax la dhaho 5 groupka sponsorshipka kulley wuxuu noqon karaa matalan hadda waxaa jiro arday badan oo Soomaaliyeed ha u badnaadaan kuwa Kenya jooga siiba qaxootiyada maxaa laay high school ayay meesha ka dhameeyaan waxay sameeyaan qofkii kaalinta koowaad ama labaad gala especially qofka kaalinta koowaad gala waa Canada way soo qaadataa waxay keentaa meeshan waxaana loo keenaa waxa la dhaho scholarship marka jaanisho noocaas way jiraan marka sponsorshipka markii oo waxyaalo kale oo kale laga yaabay inuu ay soo gali karaan laakiin markaan dhaho naagtaada ku dacweynayso mise ninkaaga ku dacwoonayo taas markay imaato iyo markay 5 groupkana imaato waxa way sponsorshipka marka labadaas marka isbarbar dhigo 5 sponsorshipka ninka naagtiisa u dacwoonayso taas waa spouse laba qof oo isqabta oo macnaha kala fog oo la rabo in familkoodii ay dib u midoobaan waa barnaamij macnaha maxaa la goonigiisa oo macnaha si kale dawladda ay u qaabisho oo la dhahay lagu weydiinayo gabadhan macnaha shahaadada aad ku guursatay مثلا dadkan waxay jirto waxa la dhaho certificate of marriage مثلا labadan qof inay isqabaan wax cadeynayo مثلا wax cadeynayo waxa kamid ah qofkii nikaaxay meesha lagu nikaaxay shahad dadkii macnaha barnaamijka ka soo mise judge ba waxa la dhaho judge af Soomaali maxaa lagu dhahaa ma aqaan marka ba warqada magaciisa ku qoran iyo wixii addresskiisii iyo meesha asaga degan yahay taas ayaa laga rabaa waxa kale laga rabaa engagement oo kale to in labadiina mar aad meel ku kulanteen hadii arooska ay ahayd oo kale to in idinkoo isla sawiran oo kale to oo meel kale to macnaha baashaal iska meel kale to sawir ku gasheen waxyaalo noocaas ah hadii ay jirto macnaha in guri aad wada gasheen waa goonigeedii maxaa la sawiran fiican aad ka haysid iyo markii lagu nikaaxay arooskii oo la tumay doobitaan hadaa ka haysid marka familka mise labada qof oo isqabta oo sponsorka isku sameynaysa waxa laga rabaa waxyaalo noocaas ayaa laga rabaa oo qasab ay tahay inay macnaha soo gudbiyaan oo failkooda ay ku jirto laakiin markay imaato qofka 5 groupka lagu doodayo kaas shuqul kuma leh inuu keeno marriage certificate amise wax la dhaho labadan qof inaad saaxiibo ahaydeen maxaa cadeynayo meesha isla joogi jirteen wax ku dhahay male kaliya waxa laga rabaa qofkaas meesha joogo inuu asaga macnaha wax qaxootiga uu dawladda meesha uu asaga wadanka joogo ka haysto amise UN ka amise adiga refugee ka maxaa la UNHCR inuu sharci ka haysto oo cadeynayo in asaga qaxooti yahay
bes ayaa laga rabaa iyo dadkan ay u dacwoonayaan macnaha meel ay ku kulmeen iyo meel ay isku arkeen back home way isla soo kornay isku dugsi aheen isku iskuul aheen isku xaafad aheen caadi waay laakiin laguma dhahayo waagaad xaafad isla joogteen oo mise isku dugsiga ahaydeen mise iskuulka ahaydeen sawirka keena mise cadeenka keena wax ku dhahay male marka farqiga u dhaxeeyo labadan ayaa kuwaas ah waxa way laba isku mid maahan waa laba macnaha waxay kala gubi ibad macnaha ma fahanteen marka su'aasha labaad hadaan meesha ugu gudbo su'aalaha kale waxa kamid ahay dad ba waxay dhaheen shaqooyinka ay Soomaalida meesha ku qabato wax ma nooga sheegi kartaa iyo waxyaalaha ay Soomaalida macnaha saacadii ama se waqtiga ay qaataan inta badan Soomaalida wadankan ku nool waxay qabtaan shaqooyin iska caadi ah sababtoo ah waxa jirto waxyaalo oo ah adiga hadaad ka imaatay wadankan banaankiisa hadaad haysatay xataa wax la dhaho PhD waxa way wadankan kuma xisaabayaan waxa way PhD haysatay oo aqoon lahayd waxbaad soo baratay meeshan fariiso xafiiskan ka shaqeey qof ku dhahayso male wixii aad soo baratay ee Afrika aad ku soo baratay waxay noqonayaan wax macnaha adiga marka waa lagu qiimeynayaa laakiin waxay noqonaysaa inaad sameeysid wax la dhaho hadda anigoo kale to markaan wadankan imaaday waxaan haystay diploma marka diplomihii waxa la dhahay wax ku qiimeynay male waxaan aaday wax la dhaho advanced school oo macnaheedu yahay aniga qof waxaan ahay 20 sano ka weyn marka high schoolka ilmaha yar yar ay dhiganayaan lagu mageen karo waxa lagu geenayaa sida waxay dhahaan adult school kaas ayaa dhiganaysaa imtixaan ayaa laga qaaday hatta dadka qaar kood isla markiiba waxay fariisanayaan imtixaanka markii laga qaado grade 12 oo macnaha uu yahay galaaska 12aad oo laga rabo math iyo english waxyaalo kale oo hadaad rabtid inaad dhakhtarnimo baratid waxaad baranaysaa chemistry iyo biology marka dada waxay fariistaan marka kalaasida ugu dambeeyo waxay ku qaadataa 2 bilood 3 bilood 2 bilood ay ku qaadataa waxay sameeyaan graduation koodii hore waxay ka aadayaan college ama university waxay rabaan marka taas waxay keenaysaa marka waxaan ka wadaa macna shaqooyinka la qabto maadaama wixii aqoontaada lagu qiimeynaynin oo wadankan aad ku cusub tahay dhimaaday waxay kugu qasbaysaa inaad adiga noolaataa rabtaa inaad wadankan ku noolaataa rabtaa marka maxay noqonaysaa inaad aadid wax la dhaho skills awlkiilaad wadankii markaa joogtay skillskaaga inta lagu mutaxgelinayo waxaad aadaysaa wax la dhaho general labor oo ah shaqo iska caadi ah shaqada iska caadi waxa kamid ah inaad boqsiyo aad qaadid oo meel saartid in maxay noqonaysaa maxallay waxyaalo adiga noocaas chicken meel aad ka shaqeysid meel oo hilib loo aad ka shaqeysid amse meel kale oo aad ka shaqeysid maxallay adiga shaqooyin iska caadi ah macnaha birooyin la isku dhajinayo la alxamayo shaqooyin noocaas ah marka waxyaalaha la qaato lacagtana waxa jirto gobolada way kaliyiin waxa la dhaho waxa jirta wadamadan sida Soomaaliya oo kale to ma ahan salary waxa la dhaho bishii way jiraan dadka high skills kale way qaataan waliba CEO dadka la ayaa u badan laakiin dadka iska caadiga oo general labor ka shaqeeyo wuxuu u baahan qofkan ilan guriga laga rabaa asaga biil uu raba raashin inuu soo gato gaari waxa laga rabaa insurance inuu bixiyo shidaalka laga rabaa marka wixiisa waxa way ma ka ahaan karo bil wuxuu u baahan yahay week walba u baahan yahay isbuuc walba u baahan yahay marka gobolada way kaliyiin gobolada qaar waxa lagu shaqeeyo gobolada qaar ma aqaan laakiin gobolka aniga aan joogo Ontario la dhaho minimum wage ka macnaha lacagta ugu yar qofku ku shaqeynayo saacadii waa $14 marka $14 marka saacadii aad ku shaqeynaysid waxa way waxa laga jiray wax la dhaho taxi marka adiga wax nooc asaas ah loo shaqeeyaa marka dadka markay wadankan imaadaan marka shaqo sib uma weynaysid maalinka garoonka ka soo degtid hada si caadi ah sharciyan ah ku imaatay maalinka garoonka ka soo degtid waxa lagu siinayaa maalinka ku xigto hadaadan adiga hurdo rabin oo daal kugu jirin horaa shaqo ka raadinaysaa waxa laga yaabaa macna maalinka kale ku xigto inaad goobta shaqada adoo macna waagu kugu bariyo aad ka shaqeysid marka shaqo sina looma weynayo way buuxdaa luqad inaad garatidna kuma xirno maxaa waxay ku xirantaa kaliya inaad adiga wax qaadi kartid oo physicalkaaga macnaha
qof adiga macnaha shaqooyin inta badan waxa la isku xujeeyaa inaad wax ka badan 50 pound adiga aad qaadi kartid. 50 pound waxay noqonaysaa marka 25 kiilo oo kale ayay noqonaysaa. marka ilaan waxa way aqoon meesha laguma hayar gareenayo mise laguma shaqaalaysiin, waxa lagu shaqaalaysiinayaa in adiga aad wax amaali kartid. ma fahanteen? shaqooyinka kale waxaa kamid ah inaad dhulka xaaqi kartid, ma fahanteen? amise inaad wax nadiifin kartid. waxa waaye meeshan dad baad arkaysaa oo aniga ku dhahayo waagi Soomaaliya waxaan ahay qof sharaf leh, intana markaan joogo waxa ku leeyahay dhulkaan xaaqa amisaanay wax u jiraan. waxa waaye marka shaqo waa sidaas ma fahanteen? qof shaqo sina uma weynaysid marba hadaad meesha imaatay oo imaatid maalinka ku xiga ayaad shaqo bilaabaysaa maalinka imaatay. marka su'aashii saddexaad oo maxaa la kulay walaalkeena uu soo weydiiyay kulay inaan ka jawaaban u malaynayaa. marka waxa jirto internetka waxyaalo dad badan ay macnaha ku turkuteynayaan oo dadka confuse garoobeen ay leeyihiin macnaha niyow ka soo hadal. marka barnaamijkan oo fiisaha ayaan u dambeeysiinayaa. marka waxaan rabaa fiisahaas inaan dhaho ma jirto visa free wax la dhaho oo Canada aad ku imaatid ama ku imaan kartid. fiisaha waa in shuruud uu ku saleysanaada, ma fahanteen? hadaad adigu arday tahay hadii macnaha mar fiisaha lagu sheego waxaad isticmaalaysaa baasaboorkaaga wadankaad original u dhalatay waxa fiisa lagu saaraya. marka sabab baa lagu saaraa fiisaha in adiga macnaha tourism aad tahay oo qof dalxiis u imaaday, ma fahanteen? ama qof in adiga aad tahay macnaha journalism oo wararka tabiya oo idaacada wadankan u shaqeynaya saas ku imaanayo waa qaar dad ku imaaday, ma fahanteen? ama in adigu aad tahay maxaa la qof oo businessman ama qof inventor oo dadka macnaha مثلا waxa jirtay hadda waxaan website ka aqrinay maalin dhaweed waxa lagu qaban rabay meeshan waxyaalo oo la xiriira software-ka marka dad badan oo Ghana, Nigeria, Senegal, Ethiopia, Somalia adiga Africa u badan tahay baaba ka soo qayb galay. marka shirkana shir wuxuu ahay oo dunida dhan loo qabanayay. marka dadkii oo lagu casuumay in ay ka soo qayb galaan waxa u maleynaa Quebec in lagu qaban rabay. dadkaas qaarkood waxa loo diiray fiisaha dalku galka wadankan in ay macnaha ku imaadaan. marka ayadoo Canada u aaneynayso dadka qaar markay meesha yimaadeen inaysan noqonaynin dib u noqonaynin. marka waxa la rabaa fiisaha marka lagu saaray macnaha marka baasaboorkaaga waxa la rabaa shuruud in lagu saaro. shirkii hadda waxa loo wareejiyay maxaa la Ethiopia ayaa lagu qabanaya. marka ma jirto intaad website gashid fiisa aad macnaha gacantaada ka buuxsanaysid oo lagu dhahay waa lagu aqbalay iska imaanaysid oo free ah, ma jirto. niyadni ka galin ha aaminin waxaas. marka insha Allah barnaamijkayga meeshan ayaan ku soo gabagabeynayaa. hadaad jeceshahay videoga waxaan ka codsanayaa inaad kulay subscribe gareysid ana share gareysid